والمرتيات شروينها بلاها هوية سيدا درادين وحن مركلة إذن ويديسانينا إنا دريكينا نعم ماهدان دولك لقيهنا لو فرطان عناقو كمان ملايين كم حد نقينا كسوقي بقلكين بسم الله الرحمن الرحيم والمرتيات كشركة وضطشقة لقن بلوين تهوية تاريخ لبيه طبعاً بيشة جناية سنة كاللبادة كون يلباتنك كدب كلما ازدبجوكا أو أضياشا لقن كأبلاها هوية أي كل حيان عاصمة دلك الصومالية مقالة مقدشو وغنا الرسالين حالة وحاطن دلك مريو وحي اسكرا عين فلنقين دير كدب كون وحقرت كبلاها هوية iyaga oo dareensan waqtiga xasaasiga ah ee uu dalku marayo iyo baahida loo qabo in loo gudbo xasilooni waxay mar kale cadeynayaan in ay si buuxda u garab taagan yihiin dawladda Soomaaliyeed iyo hoggaankeeda labo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay soo dhaweynayaan go'aanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ku aadan qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda waxayna bogaadinayaan dadaalkii ay dawladda federaalka iyo madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug ay ku bixiyeen dhamaynta tabashooyinka jira iyaga oo dhiirigelinaya in aan laga daalin wax kasta oo suurtagal ah saddex odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay soo dhaweynayaan dadaalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xallinta tabashooyinka siyaasiyiinta iyo kulamada uu la bilaabay musharaxiinta afar odayaasha hawiye waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada tabashada qaba in ay aqbalaan gacanta ay u fidisay dawladda kuna biiraan hanaanka doorashada dulqaadna ay muujiyaan shan odayaasha hawiye waxay cod dheer ku leeyihiin isla markaana ay codsanayaan in la dhammaystiro dhismaha maqaamka gobolka Banaadir iyadoo odayaashuna ay diyaar u yihiin in ay dawladda kala shaqeeyaan dhismaha maqaamka magaalada Muqdisho lix odayaashu waxa ay si aad ah uga xun yihiin ugana bixinayaan raaligelin buuxda hadalladii aan munaasibka ahayn ee dad ka mid ah magaca beeshan ugu gafeen beelaha walaalaheena ah ee Soomaaliyeed todobo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxa ay u cadeynayaan bulshada Soomaaliyeed iyo dunidaba in cidda kaliya ee ku hadli karta magaca dhaqanka hawiye in ay yihiin odayaasha dhaqanka ah ee rasmiga ah sidee odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxa ay ku celinayaan in aanay gorgortan geli karin deganaanshiyaha dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho cid kasta oo isku daydana aan laga aqbali doonin ugu dambeyn odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay ugu baaqayaan dhammaan shacbiga Soomaaliyeed midnimo isjacayl iyo walaaltinimo isla markaana gacanta midig lagu qabto hay'adaha curdinka ah ee dawladda heerarkeeda kala duwan mahadsanidin odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waa mahadsanidin